siya samaroon aqooni kama laabna ma fahanti ciise annagoo isku kaya laaban tahay oran maayo ciise annaga ka sareyna fooji dumarka beesha ciise hubka qaatay kuna hanjabay inay la wareegi doonaan ammaanka guud ee magaalada Saylac hadaba maxaa dhaqdhaqaaqyo caawa ka socda gudaha magaalada Saylac waxaan kula wadaagi doonaa xaaladaha adag oo xilligan ka taagan magaalada Saylac qodobada kale aad daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya abaabul aad u xooggan oo ka bilowday magaalada Boorama iyo ciidamadii ugu badnaa oo halkaasi lagu diyaariyay waxaan kula wadaagi doonaa qorshe dagaal oo laga soo abaabulayo magaalada Boorama markaana beesha Samaroon ay damacsan tahay inay gacanta ku dhigto gudaha magaalada Saylac qodobada kale aad daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya dawladda Soomaaliya oo qorsheynaysa inay hubeyso beesha ciise si ay ula wareegto gacan ku haynta gobolka Salal oo ay doonayso in halkaasi uu saldhig ka dhisto dawladda Turkiga oo si weyn u taageerta dawladda federaalka ee Soomaaliya qodobada kale aad daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro oo la qorsheeyay in dhawaan uu safar ku tago dalka Israa'iil isla markaana uu la kulmo ra'iisul wasaaraha dalkaasi waxaan kula wadaagi doonaa qorshaha xilligan socda iyo ujeedada uu halkaasi u tagayo madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro qodobadaasi ayaa daawan doontaan haday tahay markaagii kugu horeysay oo halkan soo booqatay waxaan ka codsanayaa marka hore in channelkan aad ku soo biirto subscribe-na dhahdo si aad u hesho wararka degdega aynu halkan soo gelino soo noqod wanaagsan mar kale waa habeen khamiis taariikhduna ay ku beegan tahay 1 bisha 1 sanadka 2025 waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad daawateen oo intaasi ka faahfaahsan aynu ka horeynay dumarka beesha ciise ayaa hubka qaatay kuna hanjabay in ay la wareegi doonaan magaalada Saylac oo ay sheegeen inay tahay magaalo ay leedahay beesha Samaroon isla markaana aysan marti ku ahayn beesha soo bandhigeen dowlatus aad u xooggan iyagoo sheegay in ay diyaar u yihiin inay garab istaagaan ragga beesha Samaroon ee isu taagay difaaca magaalada Saylac oo ay sheegeen inay tahay magaalo ay iyagu leeyihiin waxay sheegeen in dagaalkooda uu yahay laba jiho labadaasi jihana ay kala yihiin inay hubka qaadaan ay dagaalamaan iyo in dahabkooda iyo hantidooda ay iibiyaan isla markaana ay ku iibiyaan hub iyo saanad military si ay ugu taageeraan ciidamada beesha Samaroon oo ay sheegeen in durbaba ay diyaarinayaan tilaabadaasi si ay u taageeraan ciidamada beesha Samaroon ee xilligan dagaalka kula jira beesha ciise isla markaana xilligan looga wadroon yahay gudaha magaalada Saylac oo saldhigyo dhowr ah ay ka dhisteen ciidamada beesha ciise oo halkaasi ka wada dhaqdhaqaaqyo aad u xooggan oo ka dhana beesha Samaroon dumarka ayaana waxay isugu yimaadeen kulan aan caadi ahayn maanta oo ay ka gaarinsanayeen xaaladaha ka soo cusboonaaday gobolka Salal oo ay sheegeen in xilligan qarka uu saaran yahay gobolka in farahooda uu ka baxo gaar ahaan magaalada Saylac in lagala wareego beesha Gadabursi waxayna sheegeen in arrintaasi ay suurtagal ahayn lana doonayo inay garab istaagaan ragga u dagaalamaya beesha Samaroon isla markaana dumarka beesha ciise ay isu taageen sidii ay u taageeri lahaayeen ragga beesha ciise ee dagaalka ku jira isla markaana ay ku taageereen agab raashin oo kala duwan isla markaana dhankooda aysan diyaar u yihiin xilligan inay taageeraan isla markaana aysan jiri doonin waxa ay ka hagradaan dhalinyarada beesha Samaroon ee dagaalka adag kula jira beesha ciise magaalada Saylac ayaana waxaa ka socda abaabul dagaal oo aad u xooggan oo ay wadaan dhalinyarada beesha ciise iyo sidoo kale beesha Gadabursi iyadoo magaaladaasi ay ku badan yihiin dhalinyarada beesha ciise oo isaga kala yimid dalka Itoobiya iyo sidoo kale Djibouti iyagoo ka soo jawaabay baaqi ugaaska guud ee beesha ciise ugaas Mustafa oo ugu baaqay inay u diyaar garoowaan meel walba ay joogaan dagaal ka dhan ah beesha Samaroon kaasi oo uu sheegay in lagu xuraynayo magaalada Saylac oo uu sheegay inay tahay magaalo ay leedahay beesha ciise isla markaana xilligan aan loo dul qaadin karin in magaaladaasi ay gacanteeda ka baxdo qodobada kale hadaynu eegnana abaabul aad u xooggan ayaa waxa uu ka bilowday magaalada Boorama iyadoo ciidamadii ugu badnaa lagu diyaarinayo gudaha magaaladaasi xubno ka mid ah dhaqanka beesha Samaroon ayaana waxay abaabul aad u xooggan ay ka bilaabeen gudaha magaalada Boorama kaasi oo lagu farayo dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada beesha Samaroon ee ku sugan gudaha magaalada Boorama inay u diyaar garoobaan dagaal dhan walba haddii ay ahaan lahayd inay taageero hantidooda ay ku bixiyaan ama inay hubka qaadaan isla markaana ay dagaalamaan
iyadoo ugaaska guud ee beesha Samaroon uu dalbaday in laba jiha dagaalka uu noqdo dagaal lagu galayo hanti isla markaana ciidanka lagu taageerayo iyo mid hubka la iibinayo isla markaana loo iibinayo dhalinyarada si ay dagaal adag ay ula galaan dhalinyarada beesha Ciise. kulamaan caadi ahayn ayaana waxay ka socdaan gudaha magaalada Boorama waxaana kulamadan qaadanaya dhaqanka beesha Samaroon oo ay isugu jiraan salaadiinta waxgaradka iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada beesha Samaroon waxayna ka arinsanayaan xaaladahan ka soo cusboonaaday gobolka Salal gaar ahaan magaalada Sayla oo ciidamadii ugu tirada badnaa ee beesha Ciise oo isaga kala yimid dalka Itoobiya iyo sidoo kale dalka Djibouti ay ku sugan yihiin isla markaana awood ahaan xilligan aan la babacdhigi karin ciidamada beesha Samaroon ee ku sugan gudaha magaalada Sayla. taasoo qayladhaan aad u xooggan ay ka dirayeen qeybaha kala duwan ee beesha Samaroon oo ku qayladhaaminayay in farahooda ay kasii baxayso xilligan magaalada Sayla isla markaana ay la wareegayaan dhalinyarada beesha Ciise. beesha Ciise ayaana dhankeeda waxay wadaa abaabul dagaal oo aad u xooggan iyadoo qeybo badan oo ka mid ah magaalada Sayla xilligan gacan bir ay ku qabatay isla markaana ay kala wareegtay dhalinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada Samaroon isla markaana xilligan halkaas ay ka wado abaabul dagaal oo aad u xooggan isla markaana ay sheegtay inay la wareegi doonto magaalada isla markaana ay ka saari doonto beesha Samaroon ee ku sugan gudaha magaalada Sayla. qodobada kale haddaynu eegnaa dowladda Soomaaliya ayaa qorsheynaysa inay hubeyso beesha Ciise si ay ula wareegto gacan ku haynta gobolka Salal gaar ahaan magaalada Sayla oo ay doonayso inay u gacan geliso dowladda Turkiga si halkaas ay uga dhisato saldhig military. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaana la soo sheegaya in warqad casuumaad ay u dirtay ugaaska guud ee beesha Ciise ugaas Mustafa isla markaana laga dalbaday in si degdeg ah u yimaado magaalada caasimadda Muqdisho isla markaana kulan foolka fool uu la qaato madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Xamse isla markaana uu kala hadlo sida ay suurtagal ku noqon karto in ciidamada beesha Ciise ay gacanta ku dhigaan magaalada Sayla si halkaas loo geeyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana halkaas ay noqoto magaalo Soomaaliyeed oo ay ka taliso dowladda federaalka ee Soomaaliya si looga badbaadiyo gobolada waqooyi xilligan aqoonsiga ay ka heleen Israa'iil isla markaana dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dhulkeeda uga ilaashato xilligan in dowlad kale ay ka qaadato. ugaaska ayaa la sheegayaa in weli uusan ka soo jawaabin dalabkan balse warar soo baxaya waxay sheegayaan in ugaas Mustafa uu doonayo inuu qorshahan ka dhabeeyo maadaama Somaliland xilligan khilaaf aad u xooggan uu kala dhaxeeyo beesha Ciise isla markaana ay u diiday in bandhiga buugga xeer Ciise lagu qabto gudaha magaalada Sayla iyadoo kol hore ay fasaxday kadibna diiday kadib markii magaalada Boorama ay ka dhaceen dibadbaxyo waaweyn oo ay ku geeriyoodeen dad kor u dhaafaya ilaa iyo 30 qof tira intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen taasoo ugu dambeyntii sababtay in madaxweyne Coro uu qabto shir jiraayid oo uu kaga hadlayo arrinta bandhiga buugga xeer Ciise isla markaana cadeeyay in gebi ahaanba laga laabtay bandhigii buugga xeer Ciise in lagu qabto gudaha magaalada Sayla taasoo fajac iyo makaa ku noqotay bulshada beesha Ciise isla markaana ugaaska guud ee beeshaasi oo